Şaşkın oldum, yandım ben. ninkan heesta qaadaya waa taliyaha cusub ee sirdoonka Turkiga, waa gabayaa, fannaan iyo qoraaleh buugaag, waa gacanta midig ee madaxweyne Erdogan iyo afhayeenkiisii 9 sano ee u dambeysay. waa mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu awoodda badan Turkiga, wuxuuna caan ku yahay inuu yahay mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee dhidibada u taagay siyaasadda dibadda ee dalkaasi. dhanka kale wuxuu qaaday heeso dhowr ah oo isugu jira jacayl iyo diini. wuxuu qoray buugaag, leeyahayna hal abuuro. waxaynu u jeednaa Ibrahim Kalin, taliyaha cusub ee sirdoonka Turkiga ee loo soo gaabiyo MIT. Ibrahim Kalin 1971 ayuu ku dhashay xaafadda Kadikoy ee dhacda magaalada Istanbul. 1992 ayuu qaatay shahaadadiisii ugu horeysay ee jaamacadda isagoo bartay taariikhda. waxaa xigtay inuu shahaadada masterka ka qaato jaamacad ku taalla dalka Malaysia, isagoo ku qaatay masterkiisa falsafadda iyo fikirka islaamiga ah. 2002 wuxuu jaamacadda George Washington ee ku taalla dalka Mareykanka ka qaatay shahaadada PhD-ga. wuxuu bara jaamacadeed ka noqday dhowr jaamacadood oo ku yaala Turkiga iyo dibaddiisa, sida jaamacadaha Georgetown iyo Bilkent. wuxuu leeyahay baaritaano iyo qormooyin la xiriira falsafadda islaamiga ah. sidoo kale wuxuu turjumay dhowr buug oo ka hadlaya falsafadda, isagoo u turjumay luqadda Turkiga. waxaa kitaabadaasi uu turjumay ugu muhiimsanaa kitaab uu qoray qoraa Jabaanees ah oo uu cinwaankiisu u ahaa fikradda jiritaanka iyo islaamka. 2007 wuxuu qoray kitaabkiisii ugu horeeyay ee uu alifaadiisa iyo curintiisa isagu lahaa. kitaabkan ayuu cinwaan uga dhigay Islaamka iyo reer galbeedka, wuxuuna ku mutaystay abaalmarinta hal abuurka ee ugu sareysa Turkiga. kitaabkaasi kadib wuxuu alifay 2 kitaab oo kale. sanadkii 2009 ayaa loo magacaabay la taliye arrimaha dibadda ah, kadibna waxaa loo magacaabay isku xiraha guud ee hay'adda diblomaasiyadda ee hoostagi jirtay xafiiskii ra'iisul wasaaraha. sanadkii 2012 waxaa loo magacaabay gacan yare iyo la taliyaha Erdogan. 2 sano uun kadibna wuxuu noqday afhayeenka madaxweynaha. sanadkii 2018 wuxuu noqday wakiilka golaha sare ee amniga qaranka. sidoo kale wuxuu noqday la taliyaha ugu sareeya Erdogan markii uu madaxweyne Erdogan ku dhawaaqay isbuucan bilowgiisii xukuumaddiisa cusub, loona magacaabay Hakan Fidan taliyihii hore ee sirdoonka Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda madaxweyne Erdogan ayaa booskii Hakan Fidan ku bedelay Ibrahim Kalin. Kalin ayaa door muhiim ah ka ciyaaray siyaasadda Turkiga guda iyo dibadba. wuxuu ahaa mas'uulkii gacanta ku hayay xiriiradii Turkigu uu la sameynayay Mareykanka, Yurub iyo gumeystaha Israa'iil. waxaa la sheegaa inuu ahaa hogaamiyihii sababta uu ahaa in Turkigu uu ku qanciyo Mareykanka in uu ciidamo u soo diro garab istaagaanna dagaalka uu Turkigu kaga sifaynayay xuduudda uu la leeyahay dalka Syria kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama. sidoo kale wuxuu gaashaanka u daruuray dadaaladii ay reer galbeedku ku doonayeen inay xuduudda Turkiga uga sameeyaan dowlad ka madax bannaan oo ay leeyihiin qowmiyadda Kurdida ah, lana kala qaybiyo dhulka Turkiga. Ibrahim ayaa marka laga yimaado sooyaalkiisan aynu ka soo sheekaynay gabayaa iyo fannaan qaaday heeso dhowr ah. heesihiisa ayaa isugu jira jacayl iyo diini, waxaana intaan loo magacaabin taliyaha sirdoonka uu ku lahaa magaalada Istanbul 6 bisha 7 ee inagu soo aadan bandhig faneed uu rabay inuu ka heeso. laakiin markii loo magacaabay taliyaha, dhammaan bandhig faneedyadii uu ka qaybgeli rabay waa la kansal gareeyay. Beni öldüren de yoktur dini.